السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمان أصحابتي ذا ميلول بادون إذا كجوكتان وحنا يدين لي هاي نولل كوارع فرحت كون ولا هذا سيدو دنتين ما أنت وحنا يقول تلقى برنامج challenge new challenge أيان إذن صوبان دقيقة مانت وذارك يسامون أنا ماذا حاجة سيدو حيرين يا مركا new challenge يا وحنا أقوم قاعد دري يا وحنا أقوم قاعد دري rag badan baan ogahay inay kulley ka faa'iideysan doonaan xaaladdan ku jirna bandowga ayaan ku jirnaa guryaheena ayaan fadhinaa waa tala yiri stay at home oo gurigaaga joog meel ha ka aadin baashaal cuntadaada karso tv-ga iska daawo quraankaaga akhriso maasha allah ayaan ku jirnaa maasha allah ilaah noo gargaaray alxamdulillah wuxuu ilaahay keen waa in lagu xamdiyaa marka new challenge-ga aan idin soo wado waxaan ugu magac daray xiro haddaad xaniya leedahay صاحب هذا نقول الله يسويقي حيرو حداد حنيا leedahay macnaheeda dawada aragtaa saan soo xiiranay marka waa xujo dad badan ayaan doonayaa inay xujadan ka faa'iideystaan oo daawanaya oo adiga aad kamid tahay saaxib marka inaad ka faa'iideystaan wali waxaan la hadlayaa dumarka ma ahan dumarkeena Allah noo daayo walaalaheena Allah noo daayo dumar macnaha meel walba ay joogaan dumarka lama hadlayo aniga dumarka laakiin waxaan ugu talagalay ragga waliba rag badan oo aan ku wada noolnahay magaalada KwaZulu Natal yaa si fiican ii soo eegay raggaas baa la hadlayaa waa inay challenge ay ka faa'iideystaan xiro haddaad xaniya leedahay saaxiib waa inaad sideedo kale aad u soo xiirataa oo aad iska kay barajeysaa marka waxaan sugaba waa inaad sideedo kale aad u soo xiirataan waa ku faraxsanahay maanta inaan idin soo horfariisto anigoo maaragtay masha allah niyo dadku waxaan moodi jiray dadku waxay leeyihiin niyood ka qurux badan tahay laakiin aniga waxaan ismoodaaba kulli dad badan ka soo hadli doona dabcan waxay ahaataba anigu dee geesnimo waa soo xirta saaxiib marka rag badan ayaan doonaya inay soo xirtaan waka yaa furi kara xujada waxaan doonayaa in la soo furo xujada sidoo kale loo soo xirto waan ogahay rag badan ka baqaya waxaa jira oo malaynaya rag badan waxaa ku jira hadday xiirtaan ma tintaba usoo noqon doono oo ka baqaya war xiirtaniyo caafimaad ku jira dad ogaan leedeen sida uma hadasheen ma garad sida runtii xaqiiqadan ka hadlaya macnaha bando ay haysataan gurigiinaad joogtaan wareedha tinta markaad xiirataan maragto way soo baxaysaa hadhow tin qurux badan aad helaysaa caafimaad aad ka helaysaa maskaxda iyo aqliga inta way u roontaa xiiritaanka ma fahantay waa wax qayb ka mid ah caafimaadka markaan idin leeyahay challenge-ga markaan idin furo micnaheedu ma ahan dee waxay ismaalayacni kama hadlaya anigu waxaa jecesha walaalkaa la jeclo ayaa la yirite marka waa nila jeclaaday walaalahayaa tihiin caafimaadka aniga aan raadinayo dee idinkan waa nila jeclahay marka soo xiirta oo isqurxiya maasha allah runtii waa caafimaadka ka mid tahay waxaa kuu soo baxayso tin yaroo qurux badan oo udgoon kaale iska araga oo aad u qurux badan oo maasha allah ma fahantay marka caafimaadka ka mid tahay waa qayb ka mid ah caafimaadka sidaa la socda dowladda ma garatay marka challenge-ga waxaan doonayaa dad badan aan asxaab nahay inay ka soo qayb qaadan doonaan waan ku faraxsanahay dad badan oo aanay ilamid ah inay soo galaan ayagoo xiiran soo xiirtay insha allah waan idin soo dhaweynayaa waxaan idin leeyahay welcome to new challenge ka faa'iideysta challenge-ga quruxda badan aan ugu magac daray xiro haddaad xaniya leedahay saaxiib waka waxaan sugaba waa new challenge-ga ha laga qayb qaato ninkaan ka qayb qaadana dee wayalkadii asay u taallaa laakiin waa waxa micnaha hadda jira waxaan ka hadlaya aniga ma fahantay waa wax loo baahan yahay caafimaadkay ka mid tahay marka ilma adeeryaalow challenge-ga ka faa'iideysta sidaad u dhantihiin waa wax fiican challenge ma la yacni aniga kama hadlin waa mid waxaan ka hadlay anaga noo roon caafimaadkeena ayaa ku jira waxaa ku jira quruxdeena ku jirta hadhow macnaha intaad guryaha iska fadhiso inaad isqurxiso waa wax meesha ku jira isqurxinta ka mid tahay in madaxa la xirto ma aha isqurxinta kaliya inaad barfuun aad isku buufiso macnaha dhar qurxoon aad xirto no haddaad fikirkaas aaminsaneed haddaba ka gudub inaad xiirato number 1 saaxiib waxay ka mid tahay qayb ka mid ah qurxinta ragga la yiraahdaa ما dumarka inaad xiirato
oo timo qurux badan ay kuu soo baxaan ay maskaxda kuu degto ya dhiigga fresh oo kuu noqdo ya waa wax loo baahan yahay ma garteen marka saaxiib ka faa'iidayso haddaad aqli leedahay niyo xiro haddaad xaniya leedahay saaxiib asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam ya saa dhantiin